Assalaamu calaykum. Ku soo dhowaada channelka Cabdicasiis Boodle. Maanta waxaynu ka hadli doonnaa sheeko ku saabsan ninka adduunyada ugu taajirsan ee lagu magacaabo Bill Gates. Waqtiyada ka mid ah ayaa Bill Gates la weydiiyey ma jira qof kaa hodansan ama kaa tijaarsan. Waxa uu yidhi, hal qof ayaa jira oo iga hodansan aniga. Waxaa la weydiiyey, waa kuma qofkaasi? Waxa uu ku jawaabay, markaan jaamacadda ku jiray waxaa igu soo dhacday inaan bilaabo mashruucii Microsoft. Maalin aniga oo safar ah oo ka sii baxaya airportka New York ayaa waxaan arkay wargeys meesha yaalla. Waxa aan damcay inaan iibsado, laakiin waxa aan waayay lacag yar ama fraction aan ku iibsado. Kadibna waan iska dhaqaaqay. Waxaan arkay wiil madow ah oo iga soo daba ordaya oo ila hoo qaado. Waxa aan ku idhi, lacag ma haysta ee maxaan sameeyaa? Wiilkii wuxuu igu yidhi, waa hadiyad xaggayga kaaga timi ee qaado. Kadibna waan ka qaatay. Haddana 3 bilood kadib, aniga oo raba inaan safro ayaan meeshii soo maray. Waxaan arkay wargeys meesha yaalla. Waxa aan damcay inaan iibsado, haddana waxaan iska waayay lacag yar. Waan isaga soo tegay. Mar kale wiilkii madowga ahaa ayaa iga soo daba cararay, wuxuuna igu yidhi, hoo qaado joornaalkan. Waxa aan ku idhi, hadda ka hor meeshan ayaan soo maray, lacagna maan haysan. Wargeyskii lacag la'aan ayaad igu siisay. Maantana sidoo kale, arrintan ma qof walba ayaad u samaysaa? Wiilkii waxa uu yidhi, maya, qof walba uma sameeyo, ee haddaan go'aansado inaan wax bixiyo, waxaan ka bixiyaa lacagtayda gaarka ah. Bill Gates wuxuu yidhi, hadalkiisu raad ayuu igu reebay, aadna waan uga fakeray. 19 sano kadib, marka aan lacag fara badan helay, waxa aan go'aansaday in aan raadiyo wiilkaas madowga ah. Koox raadisa ayaan sameeyey, waxaana u sheegay in ay ka raadiyaan meelo badan. Baadhitaan dheer oo qaatay muddo bil iyo badh ah, waa la soo helay wiilkii isaga oo meel masrax ah waardiye ka ah. Waxa aan ku idhi, ma i taqaanaa? Waxa uu yidhi, haa. Ma jiro qof aan ku aqoon. Waxaad tahay maalqabeenka la yidhaahdo Bill Gates. Waxa aan ku idhi, wakhti hore ayaa aad 2 jeer hadiyad ahaan ii siisay wargeys aniga oon wax lacag ah haysanin. Maxaad sidaa u samaysay? Wiilkii waxa uu yidhi, arrintaas waa wax caadi ah, waana wax ka yimid dareenkayga. Bill Gates waxa uu ku yidhi, hadda waxaan rabaa wanaaggii aad ii samaysay in aan kuu gudo ama aan kuu sameeyo. Wiilkii waxa uu yidhi, sidee? Bill Gates waxa uu yidhi, wax walba ayaan ku siinayaa oo aad rabto. Wiilkii waxa uu yidhi, ma wax walba oo aan dalbado ayaad i siinaysaa? Bill Gates waxa uu yidhi, haa, sababta oo ah dowlado badan oo Afrikaan ah ayaan amaah siiyey, waanan ku siinayaa inta aan siiyey oo kale. Wiilkii waxa uu yidhi, abaalkii aan kuu sameeyey iima gudi kartid adigu. Bill Gates waxa uu yidhi, iima gudi kartid maxaad uga jeedaa? Wiilkii waxa uu yidhi, waad awooddaa lacag inaad i siisid, laakiin abaalkii iima gudi kartid. Sababtuna waxa ay tahay, anigoo faqiir ah ayaan ku siiyey wax aan u baahnaa, adna waxaad rabtaa adigoo lacag badan haysta inaad i siisid lacag. Waxaan u baahanahay waa inaad ii mahadnaqdo oo keliya, lacagna ma rabo. Bill Gates waxa uu yidhi, mar walba waxaan dareemaa wiilkaas inuu iga hodansan yahay. Adiga oo wax u baahan inaad bixisid ayaa ka wanaagsan adiga oo wax kaa badan haysta inaad bixisid.